بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa walaalayaal inaan halkan idinka soo gudbiyo maanso ka hadlaysa khiyaalaadka iyo sheeko xariirada ugu faca weyn Soomaalida oo ay muddo laga joogo boqolaal sanadood ka hor ay isku jalbeebin jireen iyadoo ay maanta tahay waxa lagu kala horeeyaa ay tahay sheekada ay iyagu xilliga ka sheekaysan jireen waa qisadii awrkii cirka ayaan waxaan ka samaynayaa maanso halbeeg ahaan iyo mathaal ahaan u badan. waxaan idhi markii aan arlaayiga darsay endhabu ilaaleeyay atmosfeerka iyo baan u kacay oogadaa sare saynisyahan aqoon dheer leh baa soo abaabulay ereyada durduray uga dhigeen udub dhaxaadkii khubaradu markay ansixisay een soo afjaray hawsha ee anteenadii qotonsataan aaladii diray diirad waxaan adeegsado oon hadba jiha ku eegaaba airline ka soo duushay boon orod ku dhaafaaba taafraad markii aan tegay een aadmi weli gaadhin dabeed waxaan u kuur galay inaan khabar ogaaday halka awrku joogo iyo markaan sahanshayaagoo dhan aragtidan ka soo helay markaan buug ku soo urushay ee aan dhulkii imi iyo halkii aadanuhu joogay akhbaarkii markaan uga warramay bay igu ilaaqeene nin qalbigu engegay baan cilmigu gelin abiidkiise war maxay igu diray maraykankaba ma adyadeeyaane